halka aad raadinayso ummadda Soomaaliya inay fahmaan la rabo dastuurka lagu dhaqmo ma aha meesha waxay kaaga cadaanaysaa asxaabtan inaysan rabin in xal helo maxay xalay sheegi lahay mushkiladay keenay yaqaanin wadan ku soo hogaamiye yaqaanin laakiin xalka ma sheegi yaqaanin xalka wuxuu ku jiraa sida muuqato horta gudoomiyihii asxaabtan waa la tageen meeshii uu deganaa oo sharafta lahayd oo heybada lahayd oo qaranku lahaa maxabsiga waa ka saareen waxay dejiyeen meel makhaayada oo mucaaradkoodu degan yahay oo xisbi xarun u ah oo kuwa caanka ku ah lugooyada Soomaaliyeed oo wada taqaaniin ama bad gaday ama dhul gaday ama jini oo dhan aha ay degan yihiin meeshaas la dejiyey waa garan kartaa marka meeshaas xal in la raadiyo caawana meeshaan oo ummadda Soomaaliyeedna wada daawanaya waxa la yiraahdaa dastuurkiina lama rabo in lagu dhaqmo ayl dastuurku wuxuu leeyahay qofka waxaan ku soo eeday laguma eedayn wuxuu dastuurku leeyahay intaan qof soo eedayso inta qof lama haayo dastuurna waa laga hadlayo horta su'aashaas aad u fiicneed waliba hadaa fursad kale siisid oo laakiin xalka ku abaaraya isan fadhi ku dil oga hadlayna waa fiicnaade laakiin waxa muuqato walaalahan inaysan xal hayn xalku wuxuu ku jiraa marka raayina sheeg koow ummadda Soomaaliyeed inay u arxamaan oo fowdadan iyo mashaakilkan ay keeneen la noqdaan oo xildhibaano dadku u adeega ay noqdaan hawshina waa diray qabto oo sharci dejinta barlamaankaas 2 sano jira hal sharci gudbiya 2 sano aan gudbinay gudbiyeen anoo macna barlamaanka waa faham soma wax laga qabo waayane waa xildhibaanka careysa si kasta hadii la yiraahdo hal shaqo waa socod weys maalin walba shudday wala shudadaas inay dhaafaan oo wadankan u ogolaadaan bal 2 sano hartay inaan wax qabanno horta xalku kaas oo iska daayaan inay ummadda Soomaaliyeed u soo horseedaan dhibaato iyo mashaakil horta halkaas u jira haddii kaas la waayo waa la way doonaa sida muuqata xalku wuxuu ku jiraa in sharcigu shaqeeyo xildhibaanka sida hadda meeshan ka yeerayso shati uma haysto inuu ummadda Soomaaliyeed dhibaateeyo wax kale ayadoon la qabanin inta caawid meeshan been laga sheegay kaliya xabsi lagu aadi karo literal xaqiiqda marka loo hadlo markay xildhibaan qaran oo mas'uuliyad qaran saaran tahay oo inta meel fagaaraa yimaado dambiye cad galay wadanka uu loo naxayo leeyahay mataqaanaa waryaan mataqaanaa xiisad siyaasadeed dhicin hal socdo maan hadalimiin waa kulligood dambiye ku jiraan saas u wada hadlay wadanka inay ka daayaan oo sharciga wadanku ay mas'uulka yahay dejiyay shuruucda dejiyay ay u hoggaansamaan shuruucda marka leeyahay iyagu ma dejinay quruumiye ka horeeyo oo madaxa qabaya deji laakiin sharciga wadanka in loo hoggaansamo ayaa meesha jirto inta dambi ay galeen inta sheekadan yarta ay socoto waa uu leeyahay wadankii uusan qalaasa siyaasadeed gelin maahane yani nin fagaare inta istaaga dadka kiciyo yiri hal isdhameeyo oo xildhibaan xasaanadu ma laha inuu waxa sameeyo waxaasi sameeyo marka waxa fiican inay gudoomiyaha gurigiisa ku soo ceshaan ka tanaasulaan waxyaalaha ay sameynayaan barlamaanka waxa ugu weyn oo qabto oo ugu muhiimsan waa ansixinta xukuumadda iyo ansixinta miisaaniyadda dastuurkeena sheegayo haddii barlamaanku uu awoodi waayo awood weysha laga hadlayo uu awoodi waayo in uu ansixiyo dastuurka inuu ansixiyo miisaaniyadda barlamaankaas waa kala tegid meeshaasay rabaan ay ku jiidayaan si barlamaanka loo kala diro meeshaas way meesha ku jiidaan maxaa yeele barlamaanka waa midkii aada ogeedoy ka aarsanaya
xalku wuxuu ku jiraa oo xal ku yaalaa in xildhibaanadu iswaansadaan xildhibaanada kalena ay furjignaadaan xataa hadday kalifto in guddoomiyaha ay la tageen oo shaqadiisii ka tegey u fiirso guddoomiyuhu ma haysto kii ku xigay kii ku sii xigay ma haysto xoghayuhu d g oo kale waa layidhi xoghayuhu d g maaha xoghayaha waa ka weyn yahay d g xoghayihii ma haysto shaqaalihii baarlamaanka ma haysto madaxweynihii ma haysto baarlamaanka ma haysto guddoomiyihii u haystaa xildhibaanadii xanaaqsana xataa hadday kalifta inaan sharciga dib intaan ugu noqono aan meel iska fariisino halkay ka mid tahay yacni ma dhici karto guddoomiye keligiisa oo aan madaxweynihii la haysan oon prime ministerkii la haysan oo guddoomiye ku-xigeenkiisa la haysan koowaad oo guddoomiye ku-xigeenkiisa labaad la haysan oo xogeeyihii joogtada la haysan oo baarlamaanka oo aan la haysanin xildhibaanada intooda badan oo aan la haysanin habdhowrayaasha guddiga joogtada ka mid yihin yoo la haystaa afarta mucaaradkaa gurigooda u guuray meeshuu dhex degan yahay so waxba waraaq saxiixay leeyihin madaxay xabad uga haaya waagii baryo waxaan loo joognay saxiix leeyihin waxaa inay joojiyaan xalka